kulan looga hadlayo horumarinta xarumaha danta guud ee magaalada Kismaayo iyo isku xirka dhalinyarada reer Kismaayo ayaa lagu qabtay Minneapolis, Minnesota waxaana kulankaasi ka qayb galay dhalinyaro Jubbaland oo ku dhaqan dalka Mareykanka. Ka qaybgalayaashii kulankaasi ayaa xusay ahmiyadda ay leedahay la shaqeynta dawladda gaar ahaan arrimaha horumarinta degmada Kismaayo iyo kaalinta ay ku yeelan karaan taabagelinta xarumaha danta guud. Ka qaybgalayaasha kulanka oo dhalinyaro u badnaa ayaa sheegay in ay taageeri doonaan horumarka degmada Kismaayo oo ay dhaqaale ku bixin doonaan sidii ay degmadu u gaari lahayd degmooyinka kale ee dalka ka jira. Dhalinyarada jaaliyada Kismaayo ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay dhammaan shacab Jubbaland gudaha iyo dibadba in ay garab istaagaan dawlad goboleedka Jubbaland. Haddaan nahay jaaliyada reer Kismaayo waxaan inta isugu imaanay inaan ka tashano aayaheena iyo mustaqbalkeena. mar walbana waxa u baahanahay inaan reer Kismaayo meel walba ay joogaan inaan isku xirno hadduu Ilaahay yiraahdo dunida meel walba ay ka joogaan Yurubta, Afrika, kuwa dal gudihiisa jooga Kismaayo insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo inaan isku xirno. waxaan caawa ku faraxsanahay in maanta ay noqotay habeenkii kulmisay dhalinyarada reer Kismaayo ee go'aan ku gaareen in horumarka degmadooda kaalin lixaad leh ka qaataan qaasatan jaaliyada North America reer Kismaayo. waxaan aad ugu faraxsanahay mar kale in maanta dhalinyaradii haweenkii odayaashii wax walba anaga maanta isku ah boorkan tilmaamtu dhigayo waad aragtaan wuxuu tilmaamayaa aasad degma ahaan ma reer Jubbaland oo dhan ma dhahin waa degmada magaalada Kismaayo oo ah xarunta dawladda Jubbaland maanta deganta oo ku meel gaarka ah Kismaayo hadda ka imaaday waxa waa $5 aqado quraacasho ay dadka maxaan ku raada ku adeegtaan waxa waa dadkii oo aan macnaha reer Kismaayoodka ahayn ayaa magaaladii dhistay anaga Kismaayo u dhalanana waxa waa waxba ma aan gashan inta la fadhiya qof reer Kismaayo karmeena ma ku arkaysa reer Kismaayo ahay and you don't do nothing marka waxa fiican inaan dadka walaalaheena kuwa daawanayo kuwa Yurub jooga kuwa Soomaali jooga kuwa inta jooga in wadankii lagu noqdo aad wax maxaan ku raahdaa gashataan oo dhisataan